dhammaantiin waan kaga mahadcelinayaa xafladdan sharafta badan beesha ka mida beelaha reer xaaji saleymaan ay ku duubanayaan nabadoonkoodii inaan ugu martiqaadiin aan ka soo qayb galno aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa mar haddii nabadoon la duubayo dee dadka ugu baahida badan maamulka degmada kow ka ah waayo nabadoonnada annaga inala shaqeeyaan annaga og in loo qabo baahi loo qabo annaga og wixii dhiba oo maalin kasta annaga nala xalliyaan marka beeshan halkan nabadoonka ku duubanayso reer maxamed rooble xaqiiqatan nabadoon way u baahneed oo dhib badan oo aan ognahay maalin kasta nabadoon la-aan daraadeed cidaan u raacna way jirnay laakiin hadda waa inkastoo rag nala shaqayn jira mar kastaba ay jireen haddana nabadoon guudi ma jirin beryahan dambe marka waxaan leenahay nabadoon xasan maxamed cabdi ku soo dhawow kolley odayaalka dhaqankaa kugu soo dhaweyn doona waxaana la rabaa mar haddii maanta lagu duubay mas-uuliyad aadan hore u hay jirin maanta korkaaga saaran dhibba fara badanaa kugu soo kordhaya xorriyad waa kaaga dhammaatay dantaada gaarka inaad ka shaqaysato waa kaaga dhammaatay culays fara badan oo ayaa korkaaga fuulaya inaad u dulqaadatana waa lagaa rabaa waqti badan iyo juhdi badan inaad ku bixdo waa lagaa rabaa beesha ku dooratay oo adoo geedku fadhiyo ku soo qabatana ayagana mas-uuliyada saaran soomaalida waxaa dhaqan u ah dadka xilalka loo dhiiba waa laba mid qof asagu markii hore raadinaya iyo qof la soo qabtay dee qofkii raadinaya haddii loo dhiibo waa looga hari karaa markii hore isaga raadinayo laakiin qofkii la soo qabto wuu ka bedelan yahay sidaas waxaa la rabaa in la garab istaago waxaa la rabaa in barnaamijkan hore loola socdo waxaa la rabaa in qofkaan aan laga harin oo inta culayskan loo dhiibo aan looga harin marka waxaan rabnaa xafladda anugu furitaankaan leeyahay dhaqankaa ka hadli doona waan kaga mahadcelinayaa xafladduna waa noo furan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa la sheegay meeshaan duub maaha duub haddii la yidhahdo waxaa soo baxaysa ugaas in laga hadlahayo ugaas waa joogaa waa la soo duubay waana duubaya waa caleema saar nabadoon xasan maxamed cabdi kulmiyowi nabadoonkaas waxaa loo caleema saaray beesha reer maxamed rooble inuu nabadoon u noqdo nabadoonna waa lahayd beeshu laakiin waxaa la yidhahdaa beeshu waxaa xoogaa tiro badana maxamed rooble tiro badana meel walba waa jooga waxaad moodaa marka inay saleebaanba ka tiro badan yihiin baan ama saleebaanba ka caqli badan yihiin ama saleebaanba ka codkarsan yihiin codkarnimadu waa wixii qofka alla siiyo weeye laakiin waxaa la rabaa wax badan baan xoogaa waxaan maqalnay maxamed rooble meel laga soo gala mayla jeesha maxamed rooble ma xumayn waa dad wada boqortooyo wax badan talin jiray marka nin walba inuu taliyuu rabaa miro kabriiday noqdeen marka inay saysan miro kabriid u noqon waxaan idhi mirahaas kabriidoo boqolka hal xabaad kor dheeraysaan halkaa xaba sida loo soo tambadiyo marka halkii xabana wuxuu noqday sheekh xasan waa nin culummo ah oo ikhyaara oo diinta wax ka yaqaan oo qur-aanka iyo axaadiista intaba tafsiirahaya laftina u yaqaan tafsiirna u yaqaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام إلهي بأمهات السكالة السلام أمهات علينا الإسلام أنا قد يسكون كايك ياري مركز الله وحنا أمهات علينا ولا علينا في أمهات روبله وقوش عن قلوب البطن لدقي أيضا وأمهات علينا إلهي ما له هجرتان ولا معي وعن صوبه لنا فأنا وقالنا بقنك نردون حسن محمد عبدي شيخ الله سوى ويننا سوى الشيخ إلهي أقوفي ذا يحب الوبيبي وعلم غلاي سبيل الله تلقى ربقره وعاطها النبدور يمحى الرابله وعاطها النبدور سليمان وعاطها النبدور صوماليات وحتى نودون الإسلام odayaasheenna hadda dhaqanka maadaama shiiqii maaragtay ugu horreeyey aad tahay adigu iyo odayaasha ku soo biiray ayadana aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaana rajaynaynaa oo ilaahay ka rajaynayna adigana aan kaa filanaynaa inaad looda madaxa noo saarto in alif waxmala noo bilowdo
inaad sharciga islaamka maaragtay lagu baraarujisid inaad asaga lagu hogaamisid inaad ummadda muslimiinta o dhan aad ku dhaqdid ayadana waan kaa filanaynaa waa maaragtay aad iyo aadna waan u soo dhaweynaynaa waan rajaynaynaa beesha reer maxamed rooble oo nabadoonkaa soo dooratay taladoodii soo arooriyey haddana sheekh xasan maxaa cabdi aad iyo aad ninaan u naqaan weeye waxaan leenahay ishaaradooda ilaahay ku aadshay allaha guuleeyo annaguna aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka waan u baahannahay in wax nagu kordhiyo aad baan ugu baahannahay ayagana waxaan leenahay tolka aad baad u mahadsantihiin haddaad taladiin iyo nidaamka soo aruuriseen sheekh xasanna waxaan leenahay hadda bashiir wuxuu yidhi waan kula shaqaynaynaa sheekh xasan waxaan leenahay waa kula shaqaynayaan tolku laakiin qof kastoo cidda eed ka tirsanaya kuu soo gudbinayaan intaasay kugula shaqaynayaan haddii ilaahay idmo shaqada saasay kuula wadayaan haddii alla yidhaahdo intaasaan aanaan rabaa inaan u sheego annaga beeshayada reer maxamed rooble waxaan ku heshiinay inaan haddii ilaahay fasax laga helo aanu ku dhaqanno sharciga islaamka iyo ummadda wixii khayr ugu jiro waxaan sheegaynaa islaamka hortiisa ka sheegaynaa aakhirada inaynaan adduuniyo dhaafsan waxaan ku heshiinay dadka nala dhashay ee reer xaaji saleebaan iyo kuwa nala deriska dhaqan wanaagsan iyo xushmad inaan kula dhaqanno insha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonnaa haddii ilaahay fasax laga helo masiirka maalintaas taagan meeshii u khayra annaga intii uwoodayaa oo aan yacni maaragtay qaban karno waxaan isku dayaynaa inaan ka shaqayno khayrka walaalaha reer saleebaan ee reer xaaji saleebaan ee nala dhashay waxaan soo jeedinhayaa ee aan amar ahayn inaan ilaalinno maskabka meesha aan degannaho dantayada deegaankayaga iyo dadnimadayada iyo ehelnimadayada aanu ka shaqayno deriska islaamka ee jaanib kasta naga xiga inaan kula macaamilno si wanaagsan oo aan dadka la xisaabtanno ee aan xaq siinno oonaan xaqooda difaacin oo maaragtay aan xushmad qof kastaba kula dhaqanno waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay haddii uu idmo annagu inaanu khayr ka shaqayno marka la yidhaahda nabadoon nabad ilaahay baa keeni kara laakiin eragaasu muxuu yahay war kaliya maaha waa in jeebka la furo oo war wanaagsan iyo wax dheer looga shaqeeyo ummadda war uma baahna keligiisa wax dheefay u baahan tahay beesha aan ka dhashay waxaan u sheegahayaa in jeebabka la furo oo yacni dadka lala xisaabtamo la xaq siiyo la xurmeeyo marka adiga dadka aad xurmayso ayaa lagu xurmayn karaa marka adigu dadka xurmaysaa lagu xurmayn karaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa tawfiiqdiisa inuuna waafajiyo annagoo dhan waxaana ku dadaalaynaa insha allahu tacaala inaan ka shaqayno uwadeennu intay tahay islaax islaamka midka aan ka dhalannay ee reer saleebaan iyo midka kale oo nala deriskaada intii uwooday u tahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu